soo gabagabaynayaa shir 2 maalmood socday oo looga hadlayay wax soo saarka xoolaha gaarka ah ee caanaha laga soo saaro. Shirkan waxaa ka qayb galaya in ka badan 700 oo wufuud oo ka kala socota ilaa 50 wadan. Waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlay waxaa ka mid ah mustaqbalka soo saaridda caanaha caalamka iyo siyaasadaha dawladaha caalamka ee ku aadan horumarinta warshadaha caanaha iyo tartanka ay ku wajahan yihiin warshadaha caanaha ee Afrika. Xasan Jelle Nuno waa aqoon-yahan wax soo saarka xoolaha sidoo kale ku takhasusay isla markaana xubin ka shirka hilibka ee Kenya. Waa shirkadda hilibka ee Kenya dhibaatooyinka Soomaalida ka haysta arrinkaasi waxa uga waramay Xasan Geelle. Soomaalida xoolaha way dhaqdaan laakiin deeftooda ma artay aad uma helaan. Haddii aan tusaale aan qaato caanaha oo kale, caanaha markii aad soo saari rabtid midda koowaad waa inaad beer u heshid xoolihii oo lagu xanaaneeyo oo maaragtay loo hagaajiyo oo daryeelkooda iyo caafimaadkooda iyo maaragtay caanihii laga soo saarayo sidii lagu soo saarayo la helaa. dadkan kale waxaa waaye beer bay haystaan, beertii xoolay gelinayeen, waxay u samaynayeen meel qabow iyo qoraxda ka celiso, coos bay u beerayeen, cooskaasayta markii xoolaha la siiyo ayaa haddana weliba xanaano kale oo daaweyn iyo wax kasta loo samaynin. marka waxaad leedahay Soomaalida xoolaha way iska dhaqdaan laakiin faa'iido kuma qabaan. waxaan ka ahayn oo inay suuq geeyaan oo intay iibiyaan markaasayta lacag ka helaan oo lacagtaasayta waxay ku qabsadaan moogi faa'iido kale oo weyn ay ku haystaan ma jirto. dadka xoolo dhaqatada sidaad sheegtayba Soomaalida oo kale caanahaas iyo waxyaabaha kale ay soo saaraan waxa laga yaabaa intooda badan dibadda uma suuq geeyaan oo qof xoolo dhaqda laga yaabaa inuu caana liidaha oo kale oo dibadda laga keeno inuu iibsado. marka arrimahaas maxaa keenaya is leedahay? waxaa keenaya waxaa waaye horta annaga dhul oo waxaan degannahay oo saxara oo kale, marka climate-kanayta oo aad u adag oo dadkana ay reer guuraas ka yihiin oo cooskii iyo biyihii hadba meel ay u aadayeen dhibka weyna ugu horeyso. marka horena waxaa noloshu waa biyihiiba haddaan lahaynin marka maxaa la dhaqani. laakiin markii loo eego wadamo kale hadda sida Botswana oo kale xoolo ay dhaqdaan, Soomaalida nolol ma aha. inaga waxaa waaye horta ingiriiskii ilaahay haddadaas joogno oo dawladdanayta wax daryeel oo aan dawladihii isdaba joogga ahayn aan ka helna ma jirto oo xagga xanaanada xoolaha ma garatay. marka dawladda daryeelka laga rabay maxay tahay? waayo dadkan waa xoolo dhaqata, xoolaha iyaga iskale qaar duurka ay la jiraan, dawladda xanaanada ay bixin karto maxay tahay? marka ugu hor wax soo saarka waxaa ka koow biyihii markii la helo dhulkiina waxaa waaye dhul oo community land la dhaho oo dadweynaha iska leeyihiin. marka haddii oo dhulkii inta la qaybiyo nin walbo meel la dejiyo aag la siiyo wax bay weyn isbedelaya. laakiin Soomaalida qaabka u nool yihiin oo reer guuraanimada ah haddii la yiraahdo dhulka la qaybiyo soo hadina dhibaato kuma noqonayso. haddaan la qaybino sidan la isku dhaxyaaco maxaa marka oo la sameyn karaa oo faa'iido ma jirto, wax faa'iido ka imaan karo. marka waxaa waaye dawladda soo inay horta hatta wax yarna ha ahaatee tilaabo ay qaado oo dadkii ma aragtay meel ay dejiso ma garatay oo ay sameeyaan example oo ma aragtay dhigi karaan waa laga tusaale qaadan karaa. hadda webiga Gaaris oo kala mara magaalada Gaaris kuna baaxad weyn oo ilaa iyo masalaan ilaa iyo dhulkaas u jiraan dad oo ka samaysteen waa jiraan beero oo xoolo intay geliyaan looda hatta caanaha intay ka maalaan haddana caanihii suuq geeyaan. marka dadkaas oo kale haddii oo ma aragtay dad yar hatta ma oo dadkoo dhanba dad yar intii waxaasayto loo sameeyo marka oo laga tusaale qaato wax weyn bay ahaan leed. laakiin soo caanihii dee warshado iyo qalab uma baahno dadkan caanihii soo ma halaabayaan dhulkiina waa kuleyl. hadda warshadun baa laga sameynaya moogta oo haddii aan tusaale usoo qaato Gaarisa warshadii laga sameynaya weli ma dhamaan, laakiin waxaan u malaynay haddii ay dhamaato inay isbedel weyn ay ka keeni karto. hatta caanihii ilaahay baadiye inta loo geeyo gawaari oo frinteer qabaan oo lagu soo lisi karo oo la keeni karo ayaan qabaa. dhaqankan Soomaalida ah inaan xoolaha la iska raacdo, hilibkii la cuno, caanihii laga cabo, la iska socdo in la bedeli karo marka ma kula taadiga? wallahi si wad soo wad waxay ku xiran tahay climate ilaahay oo bedelo ma ogiye. wallahi arrintaas way adag tahay maxaa yeelay kama dhigi kartid farmland ma garatay. micnaha dhulka saxaraha dhul beereed lagama dhigi karo. biyo la-aantaasay iyo roob la-aantaasay ugu weyn ma aragtay dhibaatada. roob la-aanta iyo markii laga taga dhibaatadan iska dabiiciga ah dhaqankiina soo qayb kama noqon karayo sida xoolaha loo dhaqdo. haddaad eegto wadamada sida Botswana oo kale xoolihii caymis bay ku jiraan hab loo dhaqdaa jirto. wallahi hadda arrintaasayta aad sheegayso caymiska oo kale hadda niman waxaa jira oo hadda maaragtay mashruuciya noocaas oo kale u fidinayaan dadka xoolo dhaqatada. marka haddii oo maaragtay dadkii oo la wacyigeliyo oo wax loo sheego oo wixii ay garanaynin la baro waxayna iska bedelahayin waan u malayn. marka laakiin haddii oo sideeni un dhaqankeeni hore guru hadegin aan ku soconno kolley waxaan u malaynay dhibaatada halkeedu ba kasii socon mooy wax isbedel oo imaanaya ma jirto. waxa uu ahaa Xasan Jelle Nuno oo u waramayay Xasan Cali Geelle. waxa
waxaa dhegeystayaal aragtidooda Facebook noogu soo gudbiya waxaa ka mid ah maxamed saalax waxa uu leeyahay xingalool ayaan joogaa xoololeyda in ay caanaha cadka iyo sidoo kale codkoodaba ay ka faa'iideystaan waa arrin wanaagsan waxaana dhihi lahaa ka faa'iideysa ayuu leeyahay dhegeystahan kalena m warsame oo jooga Gabile waxa uu leeyahay xoololeydu in caanaha ay ka faa'iideystaan waa arrin wanaagsan cid kasta oo gacan ka siinaysana waan soo dhaweynaynaa ayuu yidhi dhegeystahan kalena waxaa lagu magacaabaa cabdi maxamed waxa uu yidhi shirka ka hor ayayba xoololeyda xoololeyda ka soo saari jireen lacag caanaha iyo hilibkaba ma hadda loo tilmaamaya waxa ay samayn lahaayeen ayuu leeyahay qaar ka mid ah dhegeystayaasha oo aragtidooda Facebook noogu soo gudbiyey ayay ahaayeen